daawadayaal iminkii haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii ciyaaraha. xidiga kooxda Arsenal ee Mas'uud Ozil ayaa la aqal galay gacalisadiisii ay waqtiga dheer soo wada socdeen ee Mrs Amina Turki wuxuuna aqalgalkoodu ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga halkaas oo madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan minxiis u noqday xidiga asal ahaan ka soo jeeda dalkiisa Turkiga. ciyaartoyga muslimka ah ee Mas'uud Ozil ayaa loo sameeyay aroos heer qaran ah kaas oo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si weyn uga dhex muuqday isla markaana uu cusba sii mariyay nabaradii Germany iyo Turkiga ee Mas'uud Ozil ku soo dhex maray. marka laga yimaado quruxda xafladii arooska Mas'uud Ozil iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu manxiiska u ahaa waxa kale oo jirtay arin la yaab leh oo Ozil sameeyay taas oo taabatay dareenka dadweynaha adduunka. Mas'uud Ozil iyo xaaskiisa Amina Turki ayaa go'aan ku gaadhay in xafladda arooskooda ay kaga farxiyaan 1,000 caruur ah oo la dhibaataysan xanuuno halis ah oo u baahan qaliino nolol bedelida. Mas'uud Ozil iyo xaaskiisa ayaa dadkii magaca lahaa ee xafladda ka soo qayb galay waxa ay ka dalbadeen inay bixiyaan lacag deeq ah si ay xafladda arooskoodu u noqoto mid lagu bedeli karo nolosha 1,000 caruur ah oo u baahan qaliino waaweyn oo noloshooda wax laga bedelo. Ozil ayaa lagu xasuustaa lacagtii 24,000 ee Gini ahayd ee uu ku bixiyay dalka Brazil taas oo kadib koobkii adduunka ee 2014 qaliino loogu sameeyay 23 caruur ah oo dalka Brazil u dhashay. doorkii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku yeeshay xafladii arooska Mas'uud Ozil ayaa noqotay mid hadal hayn weyn ku reebtay kubadda cagta iyo guud ahaanba siyaasadda caalamka. Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn ugu hiiliyay xidiga asal ahaan ka soo jeeda dalkiisa Turkiga ee Mas'uud Ozil kaas oo xulka qaranka Germany iskaga casilay arrimo cusurinimo ah iyadoo markii horeba lagu eedeynayay in uu sawiro la galay Recep Tayyip Erdogan oo ay markaasi Germany siyaasad ahaan isku hayeen. laakiin madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markiisii ciyaaray doorkiisii si uu Jarmalka ugu muujiyo in aanay jirin cid kale dhexgali karta Mas'uud Ozil iyo dalkiisa Turkiga wuxuuna qaatay go'aan geesinimo leh si uu Ozil ugu muujiyo inuu yahay ciyaartoy ay markii horeba ahayd inuu Turkiga matalo. kooxda Real Madrid ayaa xaqiijisay inay dhamaystirtay saxiixa xidigii kooxda Chelsea ee Eden Hazard. xidiga reer Belgium waxa uu heshiis 5 sanadood ah u saxay kooxda Real Madrid oo uu baaqi ku ahaan doono ilaa iyo 2024 iyadoo Sky Sport ay sheegtay in lagu iibsaday lacag gaaraysa 8 milyan oo Gini halka warbaahinta kale ee Ingiriiskuna ay sheegayaan in lagu iibsaday lacag gaaraysa 130 milyan oo Gini. Real Madrid ayaa shaacisay in xidiga reer Belgium saxaafadda loo soo bandhigi doono maalinta Khamiista ee 13 bisha June marka uu maro tijaabada caafimaad. Chelsea ayaa iyaduna dhankeeda xaqiijisay warkan iyagoo warbixin soo dhigay website-kooda. Chelsea Football Club iyo Real Madrid waxa ay heshiis ka gaareen saxiixa Eden Hazard. heshiiska waxa ka harsan in 28 jirkan uu maro tijaabo caafimaad isla markaana uu qandaraaska u saxeexo Real Madrid. Eden Hazard waxa uu Chelsea ka tagayaa isagoo kamid ah xidigihii ugu waaweynaa ee taariikhda kooxda. waxa uu kooxda ka caawiyay 2 jeer oo hanashada Premier League, 2 jeer oo Europa League, FA Cup iyo League Cup oo marmara. waxa loogu codeeyay xidiga ugu fiican sanadkan Chelsea record 4 jeer. garabka kooxda Paris Saint-Germain amaba PSG iyo xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr ayaa ka soo jawaabay wararkii dhawaan soo baxay ee isaga ku eedeynayay inuu faldambiyeed kufsi ah dhexda kaga jiro. warkan ayaa ah mid uu dunida ku faafiyay wargeyska reer Brazil ee UOL waxaana uu sheegay in Neymar uu magaalada Paris ee caasimadda wadanka Faransiiska ku geystay fal kufsiyeed amaba faldambiyeed isla markaana baadhitaan lagu wado. cidda falkan xun ku soo eedeysay Neymar
ayaa sheegaysa in gabadha dhibanaha ahi ay Neymar kula xidhiidhay barta Instagram-ka isla markaana ay fariimo dhowr ah isdhaafsadeen. intaa kadib mid ka mid ah asxaabta Neymar ayaa lagu sheegay inuu fududeeyay kulanka gabadhan iyo ciyaartoyga Neymar si ay isku arkaan. Neymar ayaa muuqaal uu ku faafiyay barihiisa bulshada ku sheegay inuu ka naxay maqaalka wargeyskaasi isla markaana dadka isaga garanaya ay ogsoon yihiin inaysan waxaasi ka suurtagelin. 27 jirkan ayaa muuqaalkiisa ku yidhi waxa la igu soo eedeeyay kufsi waa erey aad u xoogan laakiin waa wax dhaca haatan waan ka murugeysanahay inaan maqlo qof kasta oo i garanaya aniga wuu garanayaa inaanan weligay samayn lahayn waxaasi. dhinaca kale hadal hore looga qabtay Neymar oo saxaafadda uu waramayay kadib eedeynta ayaa qirtay inuu gabadha la hadlay balse si kale wax loo fasiray isla markaana uu wax kasta soo bandhigi doono. wixii dhacay wuxuu ahaa mid gabi ahaanba lidigu ah waxa ay ka hadlayaan anigu aad ayaan uga caraysanahay haatan wax kasta waan soo bandhigi doonaa waxaan soo bandhigi doonaa dhammaanba wada hadallada aan la yeeshay inanta dhammaan waqtiyadeedii gaarka ahaa. daawadayaal intaana waxa inoogu idil xubinteena ciyaaraha ee warka Raya TV oo idin socodsiinayay Abubakar Abka. intaynu xubinta xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.